nin sheekha bari qisan uga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerteen mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey taqwad baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata dhariguu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhan buu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa una ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toole waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhiio xaabo guraayo oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatee inkaar qabtadani waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaahu ha igu hoojina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu yidhi muraad yar baan leeyahay iska hadhay buu marka xaabadii buu soo guraya dhul cidmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaayo ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiistaa la yidhi sheekhi xaabadiiyo quryihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiibu la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka qaawisto libaax bay aragtay alaabta usoo sida ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibadiibuu markaa libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rateen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya ina kayda kuna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xagga ka keentay oo iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegay waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo ma aragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaabada sheekh xaabadii iyo biyihi way naga dhammaadeene markaasuu dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegay libaaxii ma iman dee markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasa magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha raratay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina may baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah hayna siiya innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aada leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allahu canha baa nabiga la weydiiye oo lagu yidhi nabiga akhlaaqdiisa ka waran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nabigu karkaran jiray tidhi kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray
neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaadu hadday gaadhay tiri caaisha nabigu salaadu uu soo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya intuu xaaskiisa ku yidhahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karana muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamtu ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeyey ka markhaati kacay akhlaaq wanaagiisa waxay ahayn xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamka wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina wala fiirso inan dhalinyara ka kacay masjidka dhexdeeda gacantuu taagay yaa rasuul allah ani zinada halay fasaxa buu ma deyn karaye wallahi inna lillahi warbaha markaa buu nabigu ii daayay soo dhaw hala walaalama kula dhasheen way la dhasheen gabdha walaalahay way la dhasheen gabdhaha walaalaha ayaa kula dhashay in xumaanta lagu sameeyo ma ka raalli tahay markaasuu may waan ku dul dhiman buu habar yar ma leedahay waan leeyahay habar yaraha in waxa loola taga ma jecesha aad doonaysana ku fasaxo may waan ku dhiman buu dhimasha ka qaana marka aad jiri ii fasax zinada kaba soo qaad hadii zinadii lagu fasaxo ta aad ka zinaysan ragga halka fadhiya ama walaal ugu toosan tahay ama eedo ugu toosan tahay ama habar yar ugu toosan tahay sida adiguba haweenkaaga aad xumaanta raalli aad ugala ahayn ayakuna xaasaskoodii iyo dumar iyo hablahooga iyo qaraabadooda gabdhaha qaraabadooda in xumaanta loola tagay ayakuna raalli kala ma abo ku yiri rasuul markaa yaa rasuul allah daba ii ducee markaa buu nabigu soo dhawow halkaa buu nabigu gacanta u saaray laabtiisa ilaahu qalbigiisa xumaanta uu ku haminayo ka masax farjigiisana ilaali dambigiisana ilaahu dhaaf rasuulku yiri وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعرابي نرير بادية أيا مسايد كدنا عبد ما توستاقو كاديسي مسكيت كعورات طول صوب حيبو كاديي مركب صحابته كويا عين مركب النبي يقول دعوه دافع النبي يقول دايا النبي يقول كادده حكو كلا جوينينه ماشو كاديي بيكبر كشوا النبي يقول إسقنا يقول يا رسولكم إن أعرابي يرير بادية ومقالة مدينة كعصب ولعل الله يابا إنه ويمد دين الإسلام كأنه برطو وحشود ولي أنا قلبي جيس حشود قليل إيمانك ولي قلبي جيس وسن قليل دين الإسلام قولي أنا وحبك الجرني ومسكيت النبي محمد عوردي سكول صدح بحي كادنا كنت اللي جي مسكيت قدح ذا أي النبي صحابتي كلها دافو دايا السجن أنا يقول يادا ماشي كوك هذين بيك بدأ كشبا مركب النبي كويل عليه الصلاة والسلام ألقوا مساجد ويان وعمل الله وطلق لي إن الله اللي عبد كليه بس عمل ظاهرة صلاة اللي قلت كذا قرآن اللي قلت حخرستا إلهي اللي قلت حصوصتا إياكينا وحكو أمري هل كيبو كادي بيك بنا كشبا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين بالنبي يقول أمة ديديي أصحاب تيديي وحا إلهي أدويدا وإني كاني إن هذا مدى حق أرد برسانة إن هذا مدى حق كؤت كيسان إلهي أدويدا إني مكاني برسولك بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا بشروا ورمضى خيرك وبشارية ابو النبي يقول لي ولا تنفروا ومضى خيرك هكفر حننا ومضى النحريس إلهي هكقوسن ومضى انفرار هكردن ومضى خيرك وبشارية وحاتر هذا خير بين ناس وسعداء زمن كان وزمن كإسلام قصون ولا نايي وزمن كالصحوات الإسلامي قو سعون يسي قف دين لا لدونيا قف دين يقانا لو باهي قفض النملة أيا إيمان دون إن طلب أمدا لو ديبتو عيد والبا أمدا وقان أقبني مايو أمدا وحي قائد كدغني دونتا أمد إذا تقانو قيمة له وإلهي رسولك ستقانا بشاري أمدا خيرك وبشاري وعادر هذا خير بين نوص والسعودة حنون كان لشيء أيو ماي إلهي بان هاي سنة دعاء إلهي نو أقبل يا صدقة بحينا إلهي نقاق هذا يا ضعفاء مساكين بان هاي إلهي نضيع مايو ومدى خيرك الله بشاريا ومدى وحكا النحيا لو مشاك ومدى الرسول يسروا ولا تعسروا فضيدية ابو النبي قولي
hadaad wax sheeg ummadda u fudaydi haddii talo ummadeed lagu dhiibo talada ummadda u dhibri buu nebigu yidhi walaa tucasiruuha ku adkeen ummadda talada ninka ummadayda amar ilaahay ninka ummadayda talo u qabta ee u fudaydiyana ilaahu u fudaydi buu nebigu yidhi ka ku adkayana ilaahu ku adkay buu isaga yidhi mas-uuliyiinta zamankan imaa habaar baa ku dhacaya imaa ducadii nebiga u soconaysa ogow hadday talada ummadda ay adkeeyaanna ilaahay waa ku adkayn iyakana hadday talada ummadda dabciyaanna ilaahay iyakana nolosha waa u dabcinaya mas-uuliyadda ilaahay u dabcinaya ilaahay baa garabkooga galaya wa ilaa haddii kale ilaahay garabkooga ka baxaya iyakana marka dariiqad buu nebigu noo jeexay dariiqatu lxayaat la yidhahdo saad u noolaan lahayd buu nebigu kuu jeexay waddadeydii marka meel kale ha u leexan ayuha almuslim soo noqo ilaahay u soo noqo diintiisa wa ana hada siraatii mustaqiima fattabicuuhu waa kaa jidkii toosnaa soo raaca la leeyahay toosan yahay waxweecad ma le ilaahay baa raalli kaaga noqon oo nebigiisaa raalli kaaga noqon oo islaamnimada kolkaas sideeda aad u qaadato noloshaada adduunyadiiyo taakhira ku wada hagaagi diintu nolosha way fudaydin lidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi wuxuu ahaa diinta islaamka isaga lagaga daynayay buu ahaa markaasuu nebigu noola yimid akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan dulqaad badan sabir badan adkaysi badan naxariis badan dhibrin badan iska dhex socday dadka uu la cunayay iyaka uu la fadhiisanayay uu la safraayey uu la soconayey kii u yimaaday ee la hadla hadduu ka sii jeedo qofku nebigu qoorta ma qalluucin jirin baa la yidhi uu sii wada jeesanayay hadduu nebiga qof gacan qaado qofka oo sii daaya mooyaane nebigu ma sii daynayn baa la yidhi hadduu dad meel fadhiya nebigu u yimaado assalaamu calaykum yidhaahdo 3 jeer buu nebigu salaamta ku celinayay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah 3 jeer kelmad hadduu ummadda u sheegayo 3 jeer buu nebigu kelmadda ugu celin jiray si hadalka ummadda ay u fahamtay qalbigooga u galo markaasuu diintii islaamka oo dhan buu nebigu yihi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ilaa haalik dabaqad kastoo ummadda aad ugu jirtaa saaad u dhaqmi lahayd shareecadda islaamku way kuu caddaysay raacun bas taajirkii siduu tijaaradiisa u qaban lahaa way ku taallaa shareecaddeena mas-uulkii siduu ummadda xilkayga u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa aabbuhu xilka reerka siduu u gudan lahaa shareecadda way ku taallaa ninka dhallinyarada labada waale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa jaarku jaarka kale siduu ula dhaqmi lahaa shareecaddu way ku taallaa xaasku ninkeeda siday ula dhaqmi lahayd shareecaddu way noo sheegtay qofka saacad aad wada safarteen saacadda aad la safarteen walaalkaas aad ula dhaqmi lahayd diintu way kuu sheegtay diin dhammaystiran maxaa layna siiyey diin dhammaystiran say diintaa nolosheenna ku iman bay culimmadu leeyihiin waa inaan diinta ka shaqaynaa waa inaan diinta beernaa khayrka waa la beeraa waa laga shaqeeyaa maal lagu bixiyaa waqti lagu bixiyaa dhaqaalo lagu bixiyaa fikir lagu bixiyaa la qayliyaa oon la aamusin haddaad qaylido waa lagu iman haddaad aamustase waa laga aamusa aydu dabeecaddooda habeenka way ciyaan soo jeed mise way seexdaan ya soo jeed aydii baa isku timiday way tashadeen waxay yidhahdeen anigo dadkao dhan habeenkii khalqiga o dhan habeenka waa jiifsadaane way jiiftaan oo xayawaankii xoolihii wix o dhan way hooyanayaane innaka maxaa ina wareejiye waata aydu habeenka way wareegtaan soo madarka salaada fajr markaa ka baxnay seexdaan baa la yidhi habeenka o dhan bay qeelayaan xaggan u kaciy xaggan u kaciy xaggan u kaciy waxay ku tashadeen baa la yidhi khalqiga inay wax la qabaan ay wax la wadaagaan oo habeenkiina iska seexdaan tuug baa markaa ogaatay ayadii inay seexatay tuugtii baa magaalada usoo dhacday ila aygu habeenkii muxuu sheegaa tuugtuu sheegaa tuug walba aqalku ku hagaagay wax ka dhacay baa la yidhi tuug baa markaa aqalku kusoo hagaagay wuxuu is yidhi kuwan waa fuqaraa waa masaakiin aqalkooga wax ma dhex yaalle urgacan yar
ومدوم لكم أنا أركايو كيش كوريدو أي يرو مركب ماشى الفرديون ده صار له شوري مبتة أي دي معي شوري الله سيحنا له شوري أي جيب كوري تكيش قال لي بناك يولدك ولا بحال نو ولا بالحالة أي دي بيلاقي نجي فيه والله على شقتك صدق لعب بالذهب بالدر باقي أنا أقل يرى ضد ضعفاء ومساكين أكو هجاجو أرجع يرمى كسهلين كيش كي واحد كسر مع أير صوت تعب خسار ما وحناقي وروان تعب خسارة وان تعب خسارة لقي قعمو كجبي أيدي فأوال كابو وعلى أيدي يقول جبان وقعان جبان أيدي ويمي دوي القرآن كي هبان هورا لك يعني هلا كنا قدوم ده بيقول صليا ومحل لوجن نقوم بالليلو وحيد وحويري قيل ذهبين كي عن قيليني أنا كان الدم بينه هيد ومدنا الدم بيوهيد اسمع أيها المسلم والله حق انك كامسب النبي يقول والشيطان افلم رسولك باطل كما انت ميل والبكم موقدا هذا الدعاء نقن ان لم تكن داعيا فتكون مدعوا هذا ادو مد خيرك ugu yeedhin هذا شرك lagu yeedhiyo ugu inaan yeedhna loo baahan yahay qayla ku nabad galayna hadaad aamustismiya hadaad aamusto adigana waa laga aamusi maalinta ka dambeysana umada khayrka wada way yaraan doontaa ogaada marka inaan dacwada u kacno qayladu waa dacwada weeyaan oo shaqada diinta culimada kaliya aan ku dayne caamadeena culimadeena dhalinyaradeenna odayadeena tujaarteena fuqaradeena shaqaalaheena madaxdeena mijaheena diinta dadaalkeena aan gacmaha isku qabsano niyooda insha Allah dhahada orayaan niyooda bal gacanta taago inuu shaqaale diineed oo la aqbalay ilaahay ka dhigo Allah inaga dhigo soo diyaar garooba anagu khamiista boosaasan u soconaa ijtimaaci boosaasa khamiista dhici doona afar bilood iyo 40 jamaacado badan baan rajeynaa inay ka baxay 100 jamaaco daayinkuna caasimadii waxaa tihiin wadankee soo diyaar garooba jamaacada keena insha Allah wada muslimiin